taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa warbixin ka soo saaray hanaanka amniga ee magaalada Muqdisho iyo howlgalladii ugu dambeeyay ee ay ciidamada booliska ka sameeyeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo bil Ramadaan lagu guda jiro ayaa magaalada Muqdisho waxa ka dhaca qaraxyo iyo falal taargad ah oo lagu bartilmaameedsanayo shakhsiyaad dawladda u shaqeeya haddana ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho waxa ay inta badan sheegaan in ay amniga ka shaqeynayaan taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed General Zakiya oo shir jiraayid ku qabatay xarunta Command Police ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegtay sida ciidamada amniga kaashanaya shacabka Soomaaliyeed waxay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka waxaana ka soo hooyay horumar la taaban karo sidoo kale howlgallada ciidamada waxa u suura gashay inay soo qabtaan 20 meeyo eedeysane oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin argixisada haddana waxaa lagu wadaa nidaamka baarista maanta taariikhda ahayd 16 bisha shanaad 2019 waxaa ciidamada amniga toogteen xubin ka tirsan al-shabaab kadib markuu dhaawacay suuqa Bakaara ku dhaawacay askari ka tirsan dawladda sidoo kale ciidamada amniga waxay gacanta ku soo dhigeen dhagar qaba ka tirsan argixisada al-shabaab kaasoo walxaya qarxa ku xiri gaari uu lahaa qof shacab kaasoo ku qarxay wadada Makka al-Mukarrama maalinta Arbacada ahayd taariikhduna ku beegnay 15 bisha May 2019 waxaa baaro 12 subaxnimo baabuur noociisa yahay Toyota isku qarxiyay degmada Warta Nabadda halkaas ay ku dhinteen 4 qof sidoo kalena ku dhaawacmay 9 qof intaan xaqiijinay xaleena la u naxariisay intii dhaawacantay intii dhimatay intii dhaawacantana la caafimaad taamaasiya waxaan rabnaa in mar labaad digniin u dirnaa shacabka gobolka Banaadir dhanka kireynta guryaha milkiilihii guri lagu soo qabto dad ama agab lid ku ah amniga waxa la tiigsan doonaa sharciga fadlan guri marka ka kireynaysiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ka diiwaan geliya degmada ka tirsantiin sidoo kale waxa shacabka ugu digeynaa banaanbaxyada sharci darada ah muwaadinka Soomaaliyeed inuu cabashadiisa muujiyo waa xaq dastuuri ah balse waxa loo baahan yahay inuu soo maro nidaamka dawliga howlgallada ciidamada si xowl ah ay u socdaan iyadoo xaafado badan ka tirsan gobolka Banaadir lagu wada baaritaan guryo iyo howlgallo bartilmaameysan ama target operation sida loo yaqaanaba waxa mahad balaaran u soo jeedinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo si taxana ah nala soo wadaaga wixii amni dara ah oo la kulma iyo xogag badan taasoo sahashay inaan ka gaarno howlgallo oo hadda ka socdo caasimadda ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mahadnaq balaaran u soo jeediya warbaahinta Soomaaliyeed oo si wanaagsan la shaqeeya tabinta wararka howlgallada amniga iyo howlgallada ay wadaan ciidamada amniga waxaan ogolahay 3 su'aalood maanta inaan qaato insha Allah markii hore idinkoo hormarinaya magacaada iyo meesha ka socotid fadlan soo koob hana ahaato su'aalo xiriirta howlgallada waa sida hadda idin sheegaba ninkii qaraxa watay mooto bajaaj buu saarnaa mooto bajaajkii ninkii qaraxa sitay labadoodana waa la qabtay muwaadin shacab Soomaaliyeed baa la beegsaday asna wax kuma noqonin baaristana way socotaa su'aal kale hay magaceedu waa Maxamed Ismaan Daahiye Soomaali Cable ka socdaa inta badan magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka iyo booliska howlgallada markay sameynayaan dhanka kale waxa dhibaataynta shacabka saana marka banaanbaxay yimaado waa maasinta walaalkay sidaan sheegay horto muwaadinka Soomaaliyeed xaq dastuuri weeyaan inuu muujiyaa wixii cabasho uu qaba laakiin waxa loo baahan yahay inay soo maraan nidaamka dawliga ah ciidamadeena booliska iyo ciidamada amniga guud ahaanba aad loo xakameeyay markay banaanbaxyo dhacaan inayna ku xadgudbin shacabka laakiin sidoo kalena waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeed inay u hoggaansadaan dastuurka ee soo maraan nidaamka dawliga sida loogu talagalay inkastoo magaalada Muqdisho ay mararka qaar ka dhacaan falal liddi ku ah amniga haddana ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho waa kuwa howlgal wada maalin walba ama habeen walba kuwa oo ku doonayaan in xal dhab ah laga gaaro xaaladda amni ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Maxamed Ismaan Daahiye Soomaali Cable xarunta Command Police ee magaalada Muqdisho